بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت wanaagsan dhamaan asxaabteeda qiimaha badan meel kasto adduunka ka joogtaan. sanadku markuu ahaa 1965 jir Mareykan ah oo dugsiga sare dhigta ayaa wuxuu ka qayb galay tijaabadaasi waxaa lagu fiirinayo qofka hadaan hurdin oo uu soo jeedo waxyaabaha ku dhici kara. wiilkan wuxuu soo jeeday 264 saacadood taasoo la mid ah 11 maalin oo soo jeed toos ah, yacni 11 maalmood 5 daqiiqo xataana ma hurdin uu soo jeeday. wiilka experimentiga tijaabada ku jiray markii uu soo gaaray maalmihii u dambeeyay waxaa markii ugu horeysay horta indhihiisii ka lumay waxa la yiraahdo eye focusing, yacni ishii inay wax focus garayso, inay ishii wax ma aragtay tilmaanto bidaat, yacni indhaheena markaan wax arkeeno oo maskaxdeena loo gudbinayo waxyaabaha focus ayay saaraysaa. eye focusingkii hadduu qofkii ka dhumo macnaheedu maxaa waaye wixii dhammaaba iskaga dhex yaacayo wax bidaati ma arki karo. maalintii labaad wiilkii waxaa ku dhacday waxaa ka lumay awoodda ah inuu ashyaada ama waxyaabaha uu ku aqoonsado taabashada, yacni masalan qalinkaas oo kale marka la weydiiyo waxa uu yahay ee uu taabto waxay ahayd qofka caadiga ah ee qalinka soo arkay inuu yiraahdo waa qalin oo uu ku dareemo taabashada. laakiin wiilkani waxaa ka dhuntay awoodii ahayd inuu ashyaada iyo alaabaha iyo waxyaabaha uu taabasho ku dareemo. markii ugu dambeysana wiilkii wuxuu noqday wiil uncoordinated ah, yacni wuxuu noqday mid aan saxsanayn, wiil wax ka qaldan yihiin, yacni mid maskaxdiisu ay kala firaarsan tahay. wuxuu noqday mid aad iyo aad ugu dhib qaba concentrationka inuu wax xooga saaro. asagii dhammaa wuxuu noqday qof isku dhex yaacsan. sidaas oo kale waxyaabaha uu develop garay waxaa ka mid ahayd cunugii wuxuu noqday wiil paranoid ah, yacni mid aad iyo aad u cabsi badan oo indhaha taagaya oo qalaq iyo cabsi aad iyo aad u badan ay ku jirto. sidaas oo kalena wuxuu develop gareeyay hallucinations oo laga wado in uu maqlo ama uu arko waxyaabo aan jirin. masalan dhagaa markuu isku qabto inuu maqlo qaylo saa'id ah, indhaha markuu isku qabto inuu arko dad dilaya ama dad dhibaateynaya, yacni inuu waxyaabo ma aragtay maqlo ama uu arko laakiin maskaxdiisa uun ay abuuratay ee aan si sax ah u jirin. ugu dambeyn wiilkii waa la daaweeyay wuuna soo fiicnaaday oo caadigiisii ayuu ku soo noqday. waxaana la yiraahdaa tijaabada markay dhamaatay kadib wuxuu jiifay 15 saacadood oo xiriir ah, laakiin waxay ahayd 15 saacadood oo aad iyo aad u dhib badan oo u xanuun badan. qisadaasi waxaan uga gol leenahay waxay aasaas u ahayd in culimadu ay baaraan sayniska hurdada. haddii qofku hurdo la'aan ku dhacdo maxaa jirkiisa iyo maskaxdiisa ku dhacaya, waana mowduuca maanta aan ka hadli doono. sidee hurdadeena oo yar ama hurdadeena oo naga tagtay ee u saameynaysaa maskaxdeena iyo jirkeennaba. haddaba waxaa jiro abxaas iyo baaritaano tiro badan culimada neuroscience-ka ama sayniska maskaxda aad iyo aad ugu takhasusay kuwa cilmu nafsiga bartay waxa ay kulligood baaritaano tiro badan ku hayeen hurdada sida maskaxdeena ay u saameynayso haddii qofku hurdada ay ku yaraato. muuqaalkan kii ka horeeyay waxaan kaga soo hadalnay hurdada iyo maraaxisha ay marto iyo faa'iidada ay jirkeena u leedahay. haddaba waxaa la yiraahdaa haddii qofku hurdada ay ka yaraato ama standardkii loogu talagalay ee inta badan dadka normalka ay u baahnaayeen wax ka yar qofkii uu hurdo waxa ay saameyn ku yeelanaysaa awoodiisa waxbarasho, dabcigiisa iyo dhaqankiisa, xasuustiisa iyo shaqada xubnaha jirkiisa intiisa kale. haddaba waxaan wax yar ka soo qaadanaynaa saameyntaas tirada badan ee hurdo la'aantu ay ku yeelan karto maskaxdeena iyo jirkeena. haddaba waxyaabaha ugu badan ee hurdo la'aantu ay saameyso waxaa ka mid ah ayaa la yiraahdaa xasuusta qofka. su-aasha isweydiinta waxay tahay sidee ayay xusuusta iyo awoodda waxbarasho iyo dhiraandhirin ee qofku uu leeyahay ee u saameynaysaa. طيب qofka markuu hurdo waxaa la yiraahdaa maskaxdeena waxay leedahay qaybo kala duwan. qayb kasta oo maskaxdeena ka midana waxaa jiro shaqo iyo function loogu talagalay oo khaas ah oo ay qabato. marka waxyaabaha macluumaadka iyo informationka aad akhriso ama lagu sheego ama aad barato waxaa lagu xareeyaa inboxka ama ma aragtay khaanada aqbalaysa waxaa la yiraahdaa hippocampus.
waa informational inboxka yacni meeshii qaanadii lagu xareynayay memoryga ama xusuusta nuuca short termiga masalan hadda buug akhrisay waxbaa lagu sheegay qof baa lagu baray waxyaabahaas oo dhan waa short term memory maskaxdeena waxay ku xareynaysaa meel la yiraahdo hippocampus qofka markuu hurdo waliba uu marayo deep sleepka hurdada camiiqa ah markuu marayo maskaxdeenu waxay informationkii ka soo qaadaysaa hippocampus-kii waxayna keenaysaa meel la yiraahdo brain cortex-ka shaqadiisa waxaa weeyaan inta badan wuxuu qabtaa higher brain functions waxa la yiraahdo performance-ga kamid ah memory-ga kamid ah waliba long term memory-ga waxaa la leeyahay marka xasuustii gaabneyd ee hippocampus-ka ku jirtay waa laga soo gudbinayaa marka uu qofku hurdayo waxaana loo soo gudbinayaa brain cortex yacni meeshii lagu xareynayo oo lagu keydinayay xusuusta muddada dheer la haynayo long term memory wax la dhaho haddii qofku aanu hurdin marka waxaa hoos u dhacaya ayaa la yidhi shaqadii ahayd informationka in laga soo gudbiyo meeshii short termiga ahayd ee lagu keydinayay oo lagu xareeyo meeshii xasuusta dheer noo haynaysay sidaa daraaddeed waxaa badanayso qofka ilowgiisii waxaa yaraanayso qofka memorygiisii daakiradiisii ayaa marba marka ka dambeysa sii yaraanayso sidaa daraaddeed marka koowaad waxaan dhahnay qofka hurdadiisa marka yaraato waxay saameynaysaa memorygiisii xasuustiisii sidaasoo kale waxay saameynaysaa learning abilitieskiisa ama awoodiisii waxbarasho sababta waxaa waye qofkii waxaa yaraanayo performancegiisii thinkingkiisii fikirkiisii saasoo kale analyzingkiisii ayaa qofkii hoos u dhacaya maxaa yeelay waxaa la yiraahdaa maskaxdeena qofka markuu hurdaba laba waxyaabood ayay aad iyo aad ugu mashquushaa labada waxyaabood mid kamid ah waxaa weeyaan organizing maskaxdu inay is organize garayso inay renewing isku sameyso inay repairing isku sameyso in cellska qaar growth fiican ay sameeyaan in communicationka ka dhaxeeya unugyada maskaxdeena xiriirkooda u adkaado intaasoo dhan waxay dhacaan marka uu qofku hurdo haddii qofku hurdadiisa ay yaraato intaas oo dhan hoos ayay u dhacaysaa marka labaad waxay leeyihiin maskaxdeena waxyaabaha ay sameyso qofka marka uu hurdayo waxaa ka mid ah waxay isku sameysaa cleaning yacni way isnadiifisaa sideebay isku nadiifisaa maalintii markii la joogo qofka maskaxdiisii markuu ka shaqaysiinayo wax uu baranayo wax uu ka fikirayo wax uu analyze gareynayo jirkii la dhaqaajinayo howlahaasoo dhan maskaxdeennii ayay ka yimaadaan sidaa daraaddeed maskaxdeennii waxay u baahan tahay energy inay samaysato sidaa daraaddeed waxaa leeyahay energygaas maskaxdeenu ay samaysanayso proteinskaas maskaxdeena ay soo saarayso qaar badan oo kamid a waxaa weeyaan waste products yacni maxaa waaye waxyaabo maskaxda culays ku ah oo ka dhashay shaqadii badneed ee maskaxdu ay samaysay waxyaabaha waste productska ah maskaxdeena ay soo saarto waxaa ka mid ah maado la yiraahdo adenosine sidaa daraaddeed marka maadadaas ay build up samayso yacni maskaxda ay ku aruurto qofkii khumuul ayaa ku dhacayo waa maadadaba dadka hurdada ka keenta maxaa yeelay maadadaasi waxay yareynaysaa maskaxda shaqadii ay qabanaysay waxay accumulation ku sameynaysaa maskaxdeennii ayay buuxinaysaa sidaa daraaddeed sababta uu qofku hurdada u dareemahayaba inta badan waa saas marka uu wax badan iyo howlo badan uu qabto sidaa daraaddeed qofka markuu hurdo marka maskaxdii maxay sameynaysaa cleaning up maskaxdii way isnadiifinaysaa sidaas oo kale maskaxda proteinska ay soo saarato waxaa ka mid ah protein la yiraahdo beta amyloid proteinskaas sidoo kale markay maskaxda soo saarta ayagana waxay accumulation ku sameynayaan oo ay buuxinayaan maskaxdeennii ayay buuxinayaan labadoodaas iyo productska kale ee maskaxda energyga iyo hawsha tirada badan oo qabatay daraaddeed ka dhashay maskaxdan waxay ku sameysaa cleaning up maskaxdan waxay leedahay dheecaano la yiraahdo cerebrospinal fluidkaas ayay maskaxdu iskaga dhaqaysaa waa sidii tubo biya oo kale oo maskaxda dhexdeeda inta lagu furay waxyaabaha build upka ku sameeyey iyo wasaqda maskaxdii korkeedii degay ayay nadiifinaysaa hawshaas waxay dhacdaa qofkii markuu hurdo haddii qofku marka hurdadiisii ay yaraato waxaa dhacayso in waxyaabaha waste productska maskaxdii ay accumulation ku sameeyaan taas oo hoos u dhigayso functionkii iyo xayawiyadii iyo activitygii maskaxdeenu ay qabanaysay si gaar ahaaneed beta amyloid proteinska haddii maskaxdeena ay build up ku sameeyaan
waxa ay sababaan cudur la yiraahdo Alzheimer disease waana cudurka inta badan dadka waaweyn ee waayeelka ku dhaca oo dadka xasuusta ka tagsiiya waa cudurka qofka ku sababaya inuu xataa aqoonsan waayo ilmihii asaga uu dhalay guriga ku noolaa wadanka uu joogo xataa magaciisa waxa ay ka dhalatay waxyaabaha waste productiga ah oo build up ku sameeyay oo ma aragtay fariistay maskaxdeeni sida daraadeed marka aad hurdaysid waxaad maskaxdeeni waxa ka dhacayso isnadiifin cleaning up waxa iska nadiifinaysaa waxyaabaha waste productiska subaxii waxa soo kacaysaa marka maskaxdii oo qabatay laba shaqo oo muhiim ah shaqada koowaad waxay ahayd inay isku sameyso organizing inay ishabayso inay dib isku cusboonaysiiso in waxyaabihii lagu riday meeshii lagu ridayo xusuusta gaabneed ee hippocampus-ka laga soo qaado oo la dhigo meeshii loogu talagalay xusuusaha dheer ee brain cortex-kii in activity-gii iyo maskaxdeena shaqadeedii saaka ee dib u bilaabato sidaas oo kale maskaxdii subaxii waxay soo kacaysaa ayadoo isu soo nadiifisay waxaa markaas la soo kacaysaa nashaad iyo activity waxayna diyaar u tahay maskaxdu inay aqbasho macluumaad cusub inay qabato howlo cusub hadhow markii howlihii ka bataan waxay maraysaa haddana isla wareegi laakiin subxaanallah u fiirso hadday hurdadaadii yar tahay howlahaasi oo dhan ay yar yihiin sidee ayay maskaxdaadu dareemaysaa oo maskaxdaadu ay noqonaysaa sidoo kale waxaa la yiraahdaa hurdayarida waxay hoos u dhigtaa taranka qofka waxay leeyihiin qofka markay hurdadiisii yar tahay hormoonskii la soo saarayay ee raganimada testosteronka ayaa waxaa yaraanayo soo saaristiisii iyo in stimulation lagu sameeyo in hormoonka la soo saaro sidaas oo kale waxaa leeyahay qofka markay hurdadiisii yaraato oo normalkii maskaxdeena iyo jirkeena u baahnaa ee ka yaraato waxaa disturbance ku imaanaya ama uu ma aragtay qalqal ku imaanaya wadna garaaceeni iyo dhiig cadaadiska dhiigeeni sida aan ku soo sheegnay muuqaalkii kan ka horeeyay waxaan dhahnay qofka marka uu hurdo waxaa hoos u dhacayo wadna garaaciisii sidaas oo kale waxaa yaraanayo blood pressure-kiisii ama cadaadiska dhiigiisii sidaa daraadeed marka wadnihii wuxuu helayaa nasiino yar iyo raaxo yar murqihii wadnaha laakiin qofku haddaan hurdin ama hurdo ku filan uusan helin waxa ay leeyihiin hay-adda American Heart Association oo inta badan aad iyo aad u hadasho uga faaqiida wadnaha iyo waxyaabaha la xiriira waxa ay leeyihiin qofka haday hurdadiisa yaraato waxa ay riski ugu jirtaa in qofkii uu develop gareeyo cudurrada wadnaha ku dhaca iyo dhiigkarka sababtoo ah waxay leeyihiin cadalaadkii iyo murqihii wadnaheena ma helayaan rastigii ay u baahnayeen qofku marka uu hurdayay inta badan waxaa maqashaan qofka markuu xanuunsan yahay in la leeyahay hurdada badso nasiinada badso ma isweydiisay xiriirka ka dhaxeeya xanuunka qofka iyo hurdadiisa waxa ay leeyihiin hurdadu waxay ka qayb qaadataa hurdada waa wax kamid ah waxyaabaha kor u qaada immunity-ga ama difaaca qofka yacni marka qofku uu hurdo cellska immune cellskeena waxay isku sii sameynayaan haddana renewing waxay isku sameynayaan repairing yacni way isdhisayaan sidaas oo kale waxay sameynayaan growth way korayaan saa darteed cellska difaaca ee jirkeena waxay awoodayaan inay dib isku soo cusboonaysiiyaan inay koraan inay growth fiican sameeyaan haddii qofku uu helo hurdo ku filan haddii marka qofku aanu helin hurdo ku filan waxaa hoos u dhacay ay leeyihiin unugyadii difaaca ee jirkeena sidaa daraadeed qofkii wuxuu u nuglaana infectionka inflammationka viruseska iyo waxyaabaha la midka ah sidaa daraadeed si kooban hurdo la'aanta iyo soo jeedka tirada badan waa waxa ay keenaysaa waxa ay si slowly ah waxa ay si tartiib ah u dhaawacaysaa maskaxdaadii yacni waa laga yaabaa soo jeedka tirada badan in hadda inta dhalinyarada tahay aadan hore ka dareemin dhibaatada ay ku geysanayso laakiin waxa la yiraahdaa damage-ka iyo dhaawaca ay geysanayso waa mid slowly ah waa mid tartiib ah ilaa markii dambe dhaawac irreversible ah oo aan laga kabsan karin ay soo gaaraan neerfayaasheenii iyo maskaxdeenii haddii maskaxdeenu damage soo gaarana macnaheedu maxaa waaye maskaxdeenu waa coordinatorkii iyo maamulihii jirkeena intiisaas oo kale dhaqdhaqaaqa aan sameynayno fikirkeena xasuusteena wadna garaaceena socodkeena desirekeena qofkii inuu xaajadiisii baahihiisii dareemo wax kasta oo jirkeena ka dhacaya meesha ay kasoo bilowdaan waa maskaxdeena sidaa daraadeed waxaa u baahannahay haddii aan rabno inaan caafimaadkeena inaan ilaalino caafimaadka maskaxdeena si haddaba jirkeena uu u helo
hurdo caafimaad qabta waxa ay kula taliyaan inuu qofku la yimaado sleep hygiene waxa la yiraahdo yacni in hurdadiisii uu ka dhigo hurdo caafimaad leh يعني dad qaar waxa laga yaabaa inay hurdaan laakiin hurdadoodii aysan ahayn hurdo caafimaad leh nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuxuu aad iyo aad noo baray aadaab tiro badan oo hurdada la xiriirta مثلا أبو هريرة رضي الله عنه وحوليه نبي محمد وحوئي دردارمي سدح ذا وحياوات وحاكمد وأن أوتر قبل أن أنام إنت ننسي حنين كهر إن صلاة وتري لا إماده معناه هذا محاوي إن قفكي cibaado uu horta ku soo gabagabeeyo maalinkiisii waa tan koowaad sidaas oo kale nabiga waxyaabaha uu naamray waxa kamid ahaa qofkii inuu u hurdo inuu weyseysto intaan hurdin ka hor macnaheedu waxa waaye inuu qofkii nadaafadiisii ku dadaalo sababta waxa marka culays iyo wasaq iyo ay ku saaran tahay hurdadaadii ma saxsanaanayso sidaa daraadeed qofkii markuu soo hurdo soo la tukaday wuxuu dareemayaa nashaad aad iyo aad u tiro badan hurdadaas uu galayna waxay noqonaysaa hurdo caafimaad leh sidaas oo kale xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu amrayaa in marka aan seexanayno aan ku seexano adkaarta hurdada marka laga soo tago jaanibka ma aragtay cibaad ahaan adkaartaas leedahay haddana adkaartaas waxay borogaraamiinaysaa maskaxdaada oo sidee waxa la yiraahdaa inta badan qofku marka uu seexanayo waxa maskaxdiisa ku dambeeya ee uu ku fikirayo ama uu ku hadaaqayo ama uu dhahayo ama qalbigiisa ku dambeeya ayay maskaxdiisu inta badan la tafaacushaa marka uu seexdo sidaa daraadeed marka aad quraan ku seexatid مثلا سورة الملك هل أقرأ أيوه قفكم إنتانو سيحاني النبي عليه الصلاة والسلام أذكارتي آد أقرسيد إلهي سبحانه وتعالى نفط هذه آد أديبتيد waxaa ku seexanaysaa iimaan waxaa ku seexanaysaa qalbi degan maskaxdaaduna waxay sii boros gareynaysaa waxaas aad ku seexatay iyo iimaankaas aad ku seexatay taas oo ka saacidaysa naftirkeeda in qofkii uu xasilooni helo laakiin adigoo film horror ah fiirsaday ama film dagaal ah fiirsaday ama dood iyo dagaal ku jiray marka aad hore iska tuurto adigoo aadan isku diyaarinin hurdadaadu ma noqonayso hurdo caafimaad leh sidaas oo kale xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay marka aad seexanaysid waa inaad u seexatid dhinacaada midigta waa inaad u seexataa taas macnaheedu maxaa waaye dhinaca midigta jirkeena waxa ku jiro inta badan beerkii dhinaca bidixdaana waxa ku jiro wadnihii qofka markuu u seexdo marka dhinaca bidixda markuu u seexdo waxa culays soo koraya wadnihii yani sanbabkii kale waxay culays soo saarayaan wadnihii beerkii saas oo kale wuxuu pressure soo saaraya wadnihii taas oo la leeyahay qofka caafimaadkiisii ayay saameyn ku yeelanaysaa laakiin marka qofkii uu dhinaca midigta u seexdo beerkiisiina ma noqonayo mid soo laalaaday maadaama intiisa badan ay ku taalay dhinaca midigta ay ku taalay sidaas oo kale sanbabkiisii iyo wadnihiisiina pressure isma saarayaan qofkiisi salaam iyo nabadgelyo iyo xasilooni ah ayuu ku jiifanayaa saas oo kale qofku markuu soo kaco waxa la yiri waa inuu ku soo kaca adkaarta ku seexatay maskaxdaada ku dajisay يعني meditation عمل ku ahayd ayaa laga rabaa inaad ku soo kacid salaad ayaa ku seexatay qofku waxa la yiri marka ugu horeeyay soo kacana waa inuu salaadii subax salaadii sunooyinka ah inuu tukadaa intaas oo dhan waxay ka caawinaysaa inaad hesho hurdo caafimaad qabta in badan oo inaga mid ah waxay ka caawinayaan hurdo la'aanta qofkii inaan hurdo ka iimaaneynin sidaa daraadeed waa inuu qofkii ku dadaalaa marka hurdadiisii qaabka uu hurdayo iyo xaaladda uu ku hurdayo iyo meesha uu ku hurdayo aad iyo aad ay u mahadsantihiin aadna idin salaamaya waxaan isku dayay maanta inaan ku fargareeyo maxaa jirkeena ka dhaxdhacaya haddii ay hurdadeena yaraato sidaas oo kale faa'iidada ay leedahay inaan raacno aadaabtii iyo tilmaamihii uu xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam noo dhigay marka aan hurdayno taasoo faa'iido iimaani ah iyo mid jasadi ahba jirkeena u leh aad iyo aad ay u mahadsantihiin aadna idin salaamaya wixii tacliiq ah ama aragtiyaha qaybta hoose ee comments-ka igula wadaag aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu